ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii beelaha Mudulood ee ka dhacay Muqdisho. waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya reer Banaadir Mudulood oo maanta guddi samaystay bay samaysteen way shireen waxay ogaadeen in Soomaaliya Soomaaliya qolka soo magaaladeeda ay tir madaxweyne ka lahayd taqura ay la wada yeeshay ay toodii tahay waxay leeyahay aqalka siiyay inay jiraan waraabta maanta anaga taayadana maamul samaysan hadda Banaadir nahay marka Soomaaliya Itaaliya isku timaadaan waxa yeelano ay boosaas miiska keento oo Kismaayo keento oo Baydhabo keento oo Beledweyne keento lixdii gobol ee Soomaaliya markaasaan wada yeelano wax laakiin taayadana kala cunno taayadana aan yeesho waliba ku xukumo waliba ku dilo yeelimayna waa taanideen aad iyo aad waxa leenahay maamulka sameeyay cashuur jineed ku qaata nabadgelyo ka shaqeysa wadooyinkiina dhisa maxaa nin meeshii sida aan tii karin ayaa u dhibtay talada oo dhan wasiir khaarijiye ra'iisul wasaaraha maaliyadii iyo qorsheyntii iyo maxaa qorsheynaya war magaalada baa qorsheynaya ya nabadgelyadii neemit all place muqdisho la cashuur dawlad muqdisho 3 kilomitir ku jirta dawladdaas iyaga waa labada laga xidhay iyo carruurta laga leynay iyo wadooyinka laga xidhay iyo cashuurta laga qaadanay wax laga xishooday way marka Banaadir ma toostay heereediina ma toostay ma tuurtay tii Hargeysa loo qaaday bariga Hargeysa ma toostay tii baan u qaadanaa Banaadir ma toostay heereediina ma tuurtay wala iska celiyo marka ay Soomaaliya wax noqoto saashay Soomaaliland la heshiiyo baawar shay la samaysto cashuurta la wada yeesho markaa ka qayb laakiin aan ku cashuuro aan wax weeyaan ku darsanin xagaa adduunka lagu hayo dhinaca kale gudoomiye Faysal ayaa warbaahinta Somaliland uga digay baahinta warar uu ku tilmaamay propaganda ay soo maleegeen cadawga Somaliland waxaanu yiri waxa ina diliya wax way miidiyaha wana fadhiya miidiyaha ma wasameyn karaan sheekada inaga ligdiga ah ee beenta ah ay ka soo qaadeen cadawga هذا وين كبنت اللي جسمي أفياكي مجانا ساي إثيوبيا دولة أفريقيا واحد ركوع هذا أنت في عربية لو تشتري أي قاطع وين ما علينا هاي تيجي قاطع بنت تعايد على نص مليون كسر منك عطوش الإيران وحنا أبدا عطوش بي بي سي تجارب كويس السومان هذا جماعة معاشة ذلك التمام تويتر كان waxa ku jira waxa tii fake dul fake ida iska baabiyo ka ashkato waxa ma hayna waxa qortay in adiga aad mas'uul ka tahay Soomaaliya laga macaasho عطوش شيء بردا عطوش هدا Soomaaliya hadamada iyo qabyaalad iyo qudunka la xiriirida BBC da ka joojinayaan Maxamed Mir Qorsame Ariel TV Hargeysa